sheekh aniga oo yar ayaa nin aad iiga weyn la igu daray ninkii Sacuudi Carabiya ayuu ila degay kadib wuxuu igu furay hal dalqad wuxuuna igu yiri waxaas furiin ma ahan furitaanka wuxuu u baahan yahay maqraati iyo magac in la sheego waxba dad ha u sheegin iska aamus aniguna waan iska aamusay furitaanna ma fahamsanayn sidii ayaan u wada joognay 3 caruur ah markaan u dhalay ayuu haddana igu furay hal dalqo wiig kadib uu isoo ceshaday haddana 2 dalqadood buu igu furay marka la isku daro dalqadahaasi waa 4 sanad baa ka soo wareegtay haddana wuxuu ku doodayaa gabadhan 2 mar oo mid tahay hal dalqo midna tahay 2 dalqo ayaan furay hal dalqo ayaana ii haray wuxuuna inkiray dalqadii u horeysay culuma loo tagay waana la isku kaaya celiyay kadib waxaan u dhalay 2 cunug markaan weynaaday oo aan culumo arrintii weydiiyay waxaa la ii sheegay ninkaas waxaad kula joogtid waa xaraam ninkii waxaan ku iri ima qabtid asna wuxuu leeyahay waan ku qabaa aniguna nin kale ayaan guursaday sheekha waxaan weydiinayaa ilmihii dhashay nikaaxii soo laabashada ahaa 4 dalqadood kadib xukunkoodu muxuu yahay ninka aan guursaday ee dambe ma ku saxanahay mise waan ku khaldanahay mushkilo way Soomaalidu markay wax walaaqaan wax walba idii kharibaa biidoora inaad xaliso waxa rabaa markay wax ugu cusub yihiin wuxuu markaas shariicada la raadsado laakiin marka inta tilaabo ka gudubto tu kale ka gudubto wixii isfulfulaan markaas wadaadada hal xaliyo way dhib badanta almuhim haddii uu ninku uu gabadha furo furiinkii iyadu ay hubto isaguna uu inkiro oo isqabsadaan gabadha waxay ku doodaysaa ninkan 3 goor buu furay 2 wuu qirsan yahay midna wuu inkirsan yahay aniguna waan hubaa 3daba kadib sidaa markay dhacdo maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ninka hadalkiisa la qabanayaa laakiin waa la dhaarinayaa القول قوله مع يمينه فمسألة خلاف بدن كجرو لكن سيداسا إلى حق بدن إن ليلهدو دارو إن هاد قبردن دالقدن ليسكو هايستو إن هادن كفورين بالا دارينيا هادو دارتو حرقي واجرا دارتا أو دارتي كدب هادا إيادو هوبتو هادانا صدحي دالقود إناي دعين ويسو ديدي waxaa la xukumayaa in xarigi jiro laakiin haddana waxaan la jiiri karin hubaasha ay hubto inay 3 dalqood dhaceen lama muqoonin karo ayadii marka waxaa la leeyahay isu dhiibin gogol la seexanin kana carar diid baa la leeyahay hadaad madax furasho samayn karto ka madax furo hadaad maxkamad iyo fasaq aadi karto fasaq aad laakiin xarigii ظاهرا waxa la xukumayaa maadaama uu dhaartay hadalkiisi baa la qabanayaa xariga inuu jiro masaladaasi waa sidaa waa ama waxa lagu muransan yahay dalqadiyo dhamaad ahaan noqdo ama mid hore noqdo mid labaad ahaan noqdo yaani wax weeyaan xadiidkii nabiga la marinayo sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku yiri albayinatu ala almudda'i ruuxa wax sheeganaya waa inuu cadeyn keeno gabadha waxa la marxaatiye keen haday marxaatiye keento warku waa cadiya marka waa way furantahay haday marxaatiye ay weydo isaga marka waxa la leeyahay wal yaminu ala man ankar wala dhaarina marka la dhaariyo haduu dhaarto waa sidan sheegnay laakiin ayada markaasi maadaama ay hubto isu diidi طيب salada markii sida la mariyo su'aashan hadda gabadha weydiisay markaan ku soo noqono
ninkii markay hubsatay saddex dalqood iyada siday la rumaysan tahay inay saddex dalqood ka dhamaadeen isaguna inkirsan yahay ayaa muxuu ahaayey lagu celiyey marka lagu celiyey meesha ilmaha ka dhashay ilmihii bay weydiinaysaa haddana mar dambe isaga tagtay oo war dambe heshay oo way isaga tagtay oo hadda nin bay qabtaa ninka dambana xarigiisii ma sax baa mise waa khalad midda hore horta caruurta ah insha Allah caruurtu dhib ma leh ama nikaaxu ha saxsanaado ama yuusan saxsanaanin caruurtu waa caruur sharciya laana marar badan baan soo tilmaanay caruurtu inay sharci noqdaan oo laga badbaadiyo inay garac noqdo waxaa ku filan kaliya labada ruux ee isu galmoonayo inuu ninku xaaska haweenayda ugu galmoonayo inay xaaskiisii tahay niyada uu kula kulmayo haday tahay inay u banaanto xaas u tahay intaas ku filan ilmuhu inay niman sharci noqdaan في نفس الوقت هي حقيقة الأمر أما هكدوانات أما هو فوسنات لكن هدوب حلال نما أقول تجيو قدال بها كسو بحذبة إني نصح هين علمه مركب شرعي علمه مركب أبود بالله أبترنا وح كدرنا بيوفق هذا يأبتر كعلمها كسوغانو وأنا جيني شيء دور كورو إسلام عن حرق بق وصلوها ينبه لكن حاس كيسي وموضوع وقل موضوع كدينا أور قاضي يا حرق بق ما هيبا لكن إسلام تيجي بقو خلد كدينا ويسكبركي أور بيقاد المها سبناك الله توري ما يوحل لي إن كريس وحاسكي سموسا موضع إنها المها أنت أبترها اللغوسي وأبوه باللغو أبترنا يا علم شرعي مركز شرعات وحي آدو قد داشا المها إن أبتر الآن للدقين أنت وحلوه لكرو الله رادنا حتى هذه الله للسبب ضعيفة وتبردرا والله سقيا تاوى عرور تحق وضوء وحصوها لي من كان هذا أي لا تشوكتو حرق أي كل تشوكتو مس حسين مس وخلديه من كان هذا أي لا تشوكتو حرق وما هيو وين كتكتو محايل كي هوري oo aan laga sal gaarin oo aan meel la saarin bay ninka la iska guursatay waa iyada say la ahayd yey ku go'aan qaadat saxna ma ahayn hadii ninkii la yiri hore hadalkiisa hal la qabto hana la dhaariyo lama marin hadii la yiri haduu dhaarto oo warkiisa la qabto ayadoo yeena isu ogolaan inuu hadiidana macnaheedu ma hayska tagto nin iska guursatay waxa la rabay ama inay madax furasho samayso tiqadaal dambe iska furto ama waxa la rabay inay maxkamad sharciye tagto marka maxkamadu fasaq samayso oo ay kala furto markii xarigii hore meel la saaro kadib ay marka kadib nin kala guursan kartay laakiin xarigii hore la laada oo iyaduna si u haysato ninkiina si u haysto lagu muransan yahay nin kale say ku guursan kartaa waa guurka dambe marka waa khalad waa inay ka noqoto ka cidda tirsato ninka kalena furitaan ba ma baahnaba ninkan dambe furitaan uma baahna laana khalad buu ku soo galay xarigiisu xarig jira ma marka kadib ninkii hore waa inay ama ay madax furasho ka samayso ama waa inay maxkamad sharciye tagto maxaakiimta tagto oo maxkamaduhu marka go'aan ka gaadhoon fasaqaan marka kadib ay nin kala guursan kartaa wallahu a'lam